magaalada Muqdisho xogayaha warfaafinta ee ururka Xisbul Islaam Sheekh Maxamed Macalin ayuu kaga hadlay dagaaladii muddada 5 maalmood ka soconayay degmada Bardweyne ee gobolka Hiiraan kuwa u dhaxeeyay ururka Xisbul Islaam iyo ciidamo kale oo taabacsan culamaa diinka Ahlusunnah wal Jamaaca afayeenka ayaa sheegay in dagaalka marka hore iyaga lagu soo qaaday isagoona inta raaciyay in siyaasad ahaan ay ku lug leeyihiin dawladda Itoobiya oo tilmaamay waqtiyadii ugu dambeeyay ay abaabul ka waday gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay isagoona ka gaabsaday qasaaraha dhinacooda ka soo gaaray dagaaladii ka dhacay magaalada Bardweyne oo ay weli isku hor fadhiyaan dhinacyadii dagaalku u dhaxeeyay ku dagaalamaya magaalada Bardweyne oo ururka Xisbul Islaam iyo kooxdaas Itoobiya ay soo dhistay magaciisa gobolka iyo kooxda koobiga ah labadii garab runtiina waan ka xunahay dhibaatada shacabka soo gaartay cadawga Itoobiya iyo shirqoolka oo wada wada barnaamijkaas muddada ka socday gobolada dhexe marna lagu soo dhisayay dawlad goboleed saddexda gobolka Mudug iyo Galgaduud iyo Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe maamul loogu samaynayo maamulkaas oo la hoosgeeyay cadawga Itoobiya kooxdan shariifna ay qayb ka ahaayeen taageersanayeen sidoo kale afayeen u hadlay isna culamaa diinka Ahlusunnah wal Jamaaca ayaa waxa uu guula ka sheegtay dagaaladii u dhaxeeyay iyaga iyo Xisbul Islaam ee ka dhacay gobolka Hiiraan iyagoo marka la isku soo xumiyana ay noqonayso in qasaaraha ugu badan ee dagaaladaasi ay soo gaareen dadka rayidka kuwaas oo ay ka soo gaaraan inta badan dhimasho dhaawac iyo barakac soo gaaray dadkii ku noolaa degmada Bardweyne ee gobolka Hiiraan